ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacad ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirada oo dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigaya markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacad aan dhameynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba intaan isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa تعسي الله ونحرسه كونه يقلن جبين مرك إلى أنت وضعنا مرك ويقلن جبين ويوضعنا تعسي مرك اللي سوى رسول الله وحن حقيقي ما ذانا من الإسويدين ما لنا هاي إنتان حل أرهادنا عد إسويدين يسمى باش عالم قحلي هذا مشكلة ويفيرنايان ماشي أقول مركي مريس أي دبك يسكر راعنايان كنا ويتجايان هاي كان ويلا شرايان كنا ويلا شرايان واسدي وحين قدجن هنا وحال هوان انتو قبيب وحسوا خلافين تلو يوجع عليها إسلامه مركز السعودية وني خطر وحوري أنت تيجي ستان مدي عند بركة كتاب تعيان جعله مركز يسيجي ستان مركز سوق أنت هذي بدأ بركة كتابت مدول بيس سيدي يسوي أنو يجع عليها marka dhabar kistaabshaynta la iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagu badaba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibbunahum ja'al wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ah kuwa soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ما يقدر ربي وحكوا صوب حيله جد كي لما يجري له مرة بس تك سؤال كرسي أسوق فدي له الأرض ما ده هاي إن كان مذو وايه عدان ما هي أنا لقى الدين ما جرته هاي الدين لقى الديو أو سيل سكوك على قل لحظة هذا ما لقى سوق بتلميه لايو وقت يسحب ما يستكل لحظة وقت يسود ما يست دور شوين كان على قل برلمان كونغرس سيل لو ذي إلهان عمر صوب حذي وصومالي مرة كان كأذي واكن إلهان عمر وحي سايس ترام ترى مركا قبلنا هذي ترى لا دجالس هرتب الماشي أنجون وقادر قبل صومالية يترام أيها فعس من أو ويلا دجالسا أصلا وركي سو شيكتا أيضا وركي هذا شيكتا مركا ضمن أرضي كل علي وما ليه دونا أنت ماشي كل ما تي الله هو ذن حريصه كيد لي يكيد أنت كل الله هو ذن حريصه أنت نولنا الله وضنا كل جيم مرك الله وضنا حريستنا مرك حل أيه نجرب تاعي حل كنا إسلام كوجراي إسلام كان الدين تنتان آمنه مكرجة يشرق الله لأنهم مليجاي لأنه قصة ماينايو دنتين إنه كوجرين قالوا قصة ماينا يعني أنا سلام كبحنا عن ديارك الله هنا سنة لوهايو سيد الله قبح لها دينا ضد وكعنوني ورسين كيلنا لقيت شنين سام بالوجراي من خير الذي سيو بريا waxaa jiray bariga oo jaadka la joojin jiray bariya jaadka inta la joojiyo qofkii lagu arko dabargoynta qaadka dhigi jiray waa la mamnuucay guriga la wareegay liiro waad ogsoontiin dadka waxa way yaqaanaan jaadka soo ma joojinin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayiraan waa loo keenaa sidoo loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayiraan jaadka waa la joojiyaad guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsooraa waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxa la marka faylkooda la soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale oo baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydii wuxuu dadkii kale aaway أنا قدامي وانصور كادنا إن إنتي دهن أي بحثين مساسها أفهمين تقول هذا الشيخ أنا قانون والله ونحرزه ودنتاي أنت محابيستك كلا ماشي في الدنيا أي عن سيديني يا وران تقول حي يسيني بها كاديا يذكر بحثوا كادي هذي أنت لسوا كادي لسه بحثنا يوم ما هذيك ماشي كويس أنا كادي ما يسميك أرجو يذكر لسوا كادي يعني دين الإسلام كأهيد وحي إلهي وحارنتني ما يقول له جيدو
hadduu uusan markaa asaga markaas u muuqato adduunyo una uga jeedin wuxuu leeyahay inoo wada hawsha war ilaahay ma ogole ka joog mida waxaa la yidhi wuxuu yidhi 4 naagood ka badan aan guursanaa dadkeena way dhammaadeen dagaalla lagu dhammaaday si aan intii dhintay u soo gudo waa inaan 20 iyo 30 iyo meelahaas guursado waxaa la kitaabka ilaahay ma ogole 4 ka badan markaas uu iga leexo kitaab ilaahay dantay moog kitaab ilaahay ma dantay ka ogyahay dantay ana aqaan ma kitaab dant يعني marka arintu ay noqoto dantayda anun ba aqaana taasi wax sax ma aha danta ilaahay ba yaqaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ilaahay wixii aan sameyn jiray carafan soo istaagay adna waad ogtahay anna waan is ogahay wixii xumaa aan sameynay halkan aan kuga toobad keenay oon dhigay ilaahu marxaati ka ahow wixii dadku ay ugu lahaayeen waan u celinayaa iafiyana waan dhahayaa dib dambana u geysan maayo kacbadaada agteedana ballan ku galay masaama soo dhaaya ma dharca intuu ku gasto halka uu ku joogo wuxuu leeyahay duro Facebook kala socdaa markii wax laga sheegay aan idin soo noqdo xaquba ka soo dhaaranaya maxaad noogu soo noqod nagarabta soo adigi toobad keenay ma aha yani ka soo qabaysay ma dambiga waxay u ka dhigeen soo hadda midalan ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu mu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalmaha xaj kala joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meeshu mu ku dhufay bowskii ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajkii muxuu taray al hajjul mabruur ma kaas marka ko muxaayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyeri wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waan markaas sokor uu qabay dhiikarkii ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaasoo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baan wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis marka waxaan ka wada kii mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaaya hadda koora qisay waxa nina meel uu sheekh ka aha marka sheekhani waa nin rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaa marka laakiin mida uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaa oo leeyahay qaala ta'ala ilaahi wuxuu fankihu ma daaba lakum min an-nisaa fankihu tukada ma daaba lakum min an-nisaa mathna laba tukada oo waxa laga wadaa salaada subax iyo warubaaca iyo wathulaatha wathulaatha warubaaca thulaathana waa maghribka warubaacana waa inta kale marka fankihu tukada sheekhu uu yaabay wuxuu yiri intuu la hadlo adeer ilaahay baan kugu dhaarshay ma fankihu baa tukada wuxuu yiri oo maxay tahay deenahay fankihu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaas uu gartay marka meesha in la soo galay bas inuu meesha cishtan uu rabo odaygu oo fankihu tukada la isii ahaato wuxuu yiri dadkii intuu la hadlo wuxuu dhageystay ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkaana kala saaraysiin dad dadweyneetiin saddex su'aalood baan weydiinayaa hadduu saddexda baan waan ka helo oo uu yiraahdo ha hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga i gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la sugu imaaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haddii ugu haysay fankihu tukada aaway waa anigu ana kugu haysay fankihu tukada ma ah markaas uu yiri su'aalan ku weydiinaya markaas uu weydii ilaahay soo ma dhihin qul huwa allahu ahad markaas uu yiri ha allahu samad soo ilaahay ma dhihin ha lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahay ma dhihin ha maxay tahay darbaax u dhax ku dhuftay waa la isku booday marka ninkan saddex mar ha ma kaga siiyay horta ha muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahaan marka culimada kala qabta hadda kismaayo waxa ka socda waxa waay culimada kala qabta inay inoo taala marka culimada ku kala qaban lahayn reeb baadiyaha moogtahay si magaalada kale ma kala laha
qolal oo ay kala seexseexdaan waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaaliga la wada seexdaan kuwa ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebaadu say wax ku dhalan ayaga yaqaan marka saas ay tahay waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid ka mid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buuna seexanin wuu soo jeeday waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaan baa la galay ilmi istaan bay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladdu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha haday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa in dhafrahay gelin dhafrahay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladda ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka inay faraha geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso